waxaa la furay oo la sameeyey baaritaan ay amartay maxkamadda sare kuwaas oo lagu sameynayay qaybo ka mid ah sanaadiiqdii codeynta ee deegaan baarlamaaneedka Lagdheera, waxaana ay muujiyeen jiritaanka musuqmaasuq iyo hufnaan la'aan baahsan. Baaritaankan waxa uu yimid kadib markii maxkamadda loo gudbiyey kiis lagu diidan yahay guushii guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ay ugu dhawaaqeen musharaxii xisbiga ODM Cabdiqaadir Xuseen Maxamed oo haatan ah xildhibaanka deegaanka. Baaritaankan iyo dib u xisaabtankan waxaa goobjoog u ahaa saraakiil ka socday maxkamadda sare iyo xubno kale oo ka madax bannaan doorashooyinka. Goobaha garsoore Cherere ay amartay in la baaro waxaa qayb ka ahaa goobihii codeynta ee Afweyne iyo sidoo kale Banaaney. Baaritaankan iyo dib u xisaabtanka waxa ay muujiyeen in ay jiraan islahaanshiyo